anigoo ah Cabdiraxmaan Mukhtaar Maxamed ka yimid degmada Waaciyo gobolka Bari. meeshaas cuntaa cunaya halkaas laf ugu gashay. isla maalintii laftii bariisaa cunaya ugu dhex jirtay meeshii aan ku laqay. isbitaal meeshaas ku yaala la geeyey. markii la geeyeyna waxay dhaheen waxba waa la iga soo waday. isbitaal kale waxaa la geeyey Qardho ku yaalo kii raajita la saaray. markii la ogaaday inay lafta ku jirto bay dhaheen qalabka lagu bixi lahaa iyo wax saas ma hayno. raajitadii wixii iska soo qaatay waa soo baxay magaalada Muqdisho imid. marka dhowr isbitaal waxa markuu yaala tagay waxa la qabo waayay. marka Soomaali Suudanis imid Dr. Asmar Abduqaadir Wardheer ugu dhahay laftaan waa ka soo saaraynaa inay kugu jirtana waa aragnay. lafta sidii ku arkeen marka ka bacdi laftii waa la iga soo saaray. alxamdulillah hadda waa caafimaad qabaa. Dr. Asmar Abduqaadir Wardheer iyo isbitaal Suudanis intii garab ugu siisay in laftaas laga saaro dhammaantood waa mahad celinayaa. haddana waa caafimaad qabaa alxamdulillah. marka meesha ka yimid iyo shaqadeydii wixii waa ku laaban karaa alxamdulillah maasha Allah.